Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalaheyga qaaliga ah meel kasta adduunka aad ka joogtiin kusoo dhawaada markale video cusub waxaa idin rajaynaa inaad caafimaad qabtiin caawa muuqaalka ama videoga wuxuu ku saabsan yahay insha allahu tacaala dhowr qodob ah uga hadlayo gabdhaha oo raba inay uur yeeshaan oo la qabo oo uurka raadinayo horta midda koowaad aad rabtid inaad ogaato waxaa waaye uurka iyo ilmaha ilaahay haayo haddii kuu qoran tahay inaad hooyo noqoto waa noqonaysaa oo looxul maxfuudkaas wax kugu qoran cid ka hor istaagi karta ma lahan wax kasta sabr ay u baahan yihiin laakiin ilaahay wuxuu yiri dadaal anigana waa kula jiraa macnaha dadaalka qofka bini'aadanka dadaala looga baahan yahay waxyaabo badanaa jiro oo wax ka hor istaagaya uurkaaniyati marka waxyaabahaas aan rabay inaan caawa wax yar ka taabto oo uga faa'iideeyo walaalahay waxaan kaa codsanayaa dee janaalka ku cusubta inaad subscribe saartid oo gamaleelka afroodsa ila socotid insha allahu tacaala videogana sii share gareysa hadduu ku cajabiyo marka walaalayaal waxyaabahaas maxaa ka mid ah waxyaabahaas waxaa ka mid ah dhowr qodob tan horta ugu weyn oo waxa ka mid oo muhiimka ah waxaa waaye inaad la socotid xilliga caadada ku imaanayso iyo xilliga ee kaa baxayso waa inaad ka war haysaa jirkaaga wax ka dhacayo caadada haddii soo dhaqsato 20 bisha 20 maraysa ama 20 maalin ka bacdi ku imaado way soo dhaqsatay haddii meeshii 30 maalin ka imaan lahaydna haddii imaado 40 maalin ayadana waxa waaye ayadana qalad jiro waxaa la rabaa marka inaad baratid xilliga ku imaanayso xilliga ka dhamaanayso waa qoranaysaa bisha kale haddana xilliga ku imaanayso xilliga ka dhamaanayso marka waxyaabo jaanis waxaa jira la dhahaa waxaa jira wax egg for loss la dhahayo oo yimaado xilliga dhexe ee 16 for example bisha koodeeda ku yimid samaha bisha koodeeda ku imaan hadan bisha 30keeda sugaysaa koodeeda markuu ku imaado 30keeda 16 maalintay tahay ilaa 18 saddexdaas maalin la dhahaa ugu jaanis badan jirka eglosnikaas jiro marka saddexdaas maalin la rabaa in hooyada ka faa'iideysato ama haweeneydan uur raadinaysa ay ka faa'iideysato taas ahaan marka laga soo tago maxaa kaloo lagaaga baahan yahay samaysid horta haddii ay sigaar cabto uma leeyahay sigaar cabno anaga laakiin dhaqaatiirtu waxay dhahdaan sheega aniga sigaarka qofka markuu cabayo jaaniskiis aad u yar yahay waxaa kaloo idan jira folsiira waxa la dhahaa folsiirada marka waa kaniini vitamin ah oo kaniini caadi ah oo la cunayo waaye kaniiniga marka waxaa jiro cuntooyin laga helaa jiro oo haddii aadan kaniiniga rabin oo kale ama aadan helaynin oo kale kaniiniga cuntooyin jiro cuntooyinka marka kuwa meesha idin kugu muuqdo waaye looska waaweynka oo kale waa laga helaa fulsiiraha waxaa laga helaa digirta babasheeda ama digirta caadiga xataa cambuulo aan dhahno waa laga helaa qamadiga waa laga helaa waxyaabahaasna laga helaa fruitka waa laga helaa cagaarkan waa laga helaa sida broccoli oo kale iyo kan gaduudka asigana magaciisa af Soomaali ugu dhama aqaan waa laga helaa hadii kale kaniiniga saan u yaala dukaanka tagaysa waa ka soo gadanaysa full seal la dhahaa marka kaniinigan aad runtu u fiican yahay oo waxa waaye macnaha hooyada uurka raadinaysa ama uur kale waa u fiican yahay marka waxaa lagu talinayaa inay soo qaadato kaniiniganeeti waxaa kaloo rabaa laba walxaatoo jirto marka dhaqaatiirtu waxay dhahaan cayilka haddaa hooyo cayilan tahay ama naag cayilan tahay jaaniskaaga wuu yaryahay haddaa caado tahane wuu yaryahay jaaniskaaga marka maxaa laga rabaa haddii labada mar la diiday macnaha qof cayilan lama rabo oo haddaa cayilanta caafimaadkii jirka ma fiicno uurka dee jaanisku yaraanaya haddaa caado naf tahay oo jirkaaga daciif yahayna uurku markaas inaa qaadin jaaniskaas wuu yaraanaya waqti inuu kugu qaataa laga yaaba marka qof normal iska ahaanaysaa marka maxaa kale ku soo haray hadii kaniinigii vitamin fulsiiriya qaadate oo qudaartii ku dhex jirta qaadate oo caadadaada waqti maxaheedii aad ka warhaysid xilliga ku imaanayso markii 16 maalin ka bacdi laga joogo aad ka faa'iideysanaysid markaaseeti oo xaajiga la kulantid aadan boodeynin oo musqusha inuu qubays iyo dhaqdhaqataan iyo adduun aan galeen waa la sugaa jirka waxaa la rabaa inuu wixii qaato oo iga soo sheeg oo degan yahay fahmaysa jir degan oo yahay stress lahayn waxaa kaloo jirta gabar maalin ila soo xiriirtay markaas waxay tiri walaalay waxay dhahday 3 cunug ay joogtay tiri ilaahay ha u dayno wada daay ilmaha waxay dhahday baay cunug kale waa dhal way tiri laba mar qaado waxay tiri ilmuhu iga soo halaabaya marka maxaa sameeyaa marka waxay tiri gabadhaan baayada waxay dhahday waxa u tagay dhakhtar naag dhakhtar u tagay waxay dhahday tiri minka meesha makaanku waa yar yahay uu gaaban yahay tiri marka
waa waxa u baahan tahay marka gabadhan already ilmay soo dhasho ilmi haysataa ma yaraan karto qofka markuusan ilmo dhalin u horeyso waxaa laga yaabaa in la dhaho waxaa way yaryihiin makaankaaga yar kana hebalow jirka wax ka qaldan yahay laga yaaba in gabarta lagu wareeriyo laakiin qof ilmo soo dhasho oo wixii soo sameeyey waxa waaye dee macquul ma aha marka waxaa jira marka qofka markuu saasoo kale yahay oo problem haysto jirkiisa dhan waxa waa uu digtoonaasho ku jira maxaa jirka stress ahaayo uura raba uur macnaha waxay sameynaysaa dhiigga imaaday caadadii imaaday waa sugaa miga dhamaayay maanta waa sugi isbuucan oo imaadaan rabay ma imaan macnaha caada xataa waxay usoo daahaysa ee kaaga qaldoomaysa inuu jirka stress ku jiro oo aadan qof caadi ahayn waalis iloosiinaysaa aadan mugo waxaa la rabaa inaad kasoo baxdid shaqadaada maxay tahay clinic fulsiiraha kuusoo sheega cun haddaa clinic fulsiira haysanin qudaartan aa meesha kugu soo bandhiga cun sida galeed oo kale digirteen oo kale aaday u nafaqo badan tahay waxyaabahaas cunaysaa jimicsi sameynaysaa hadda buurinta was caateynaysa hadda caadtahna qof nafaqaysa iska dhigaysa oona buurna oona caateyn normal iska dhigaysa kliniga ku sheegan ma qaadanaysa hadda cabtid sigaar wax saas iska dhaafaysa stresska stresska ma fiicno hadda ta hooyo shaqeyso wax badan shaqeyso waxaa la rabaa shaqada in iska kala yareysid fasax ka qaado haddaa tahay dadka markii oo maanta xaajiga la kulmo isla markii inay boodo mid tago quwaas jag isku soo siyaa bix iska soo dhaqay ma la rabo waxaa la rabaa tartiib isdeji ilaa 30 daqiiqo waqti sii waxaa kaloo rabaa haddii aad tahay qof depression haayo depression Soomaali way diidaa runtii depression Soomaali way diidaa laakiin depression wax jiro waaye ma fahanteen marka depression maxaa keenay qofda iska madluunsan oo jawiga ka qaldan yahay maxay ahayd iska wax ka qaldan yahay maanta waxa waaye iska madluunsan oo waxa waaye waxa ilaahay ku rooya faraxsaneen waaye hadaa saas tahan abay macaan jaanisku yar yahay marka waxaa la rabaa naftaada waqti sii marka hore kaniiniga ku sheego cuntadaada hadda isku dheelitirnaato wax vitamina la cun maxay ahayd ilaahay ku roon yahay qof normal iska ahaaw hadda caado tahay isku roono hadda caylan tahay hilibka iska normal noqo maxaa ilaahay ku jimicsi sameey oo qof guriga iska joogto hadda shaqeysa xataa dad waxay ku leeyahay ma ana jimicsi ma idin waa shaqeeya hadda shaqeysa shaqada tamkiin maada waxaa rabaa at least 30 daqiiqo banaankiina aadid oo socod xawli soo socotaa raba oo dhid iska keentaa loo baahan yahay jimicsiga noocaas loo baahan yahay baayo ma aha jimicsi shaqeeyna oo lugeys 10 daqiiqo soo lugeys oo lugeyska dalo socod caadi oo yahay caadi marka shaqo caadi isma raba socodka waxa socod jimicsi xoog waa hargaf leedahay dhiidka imaana taas loo baahan yahay marka walaalahay waxyaabaha la isaga baahan yahay runtii meesha ma ku soo koobi kari inta idin soo sheegay ugu muhiimsan marka dhaqaatiirta waxay dhahaan inta ugu muhiimsan waa intaas marka waxaan rajeynayaa inaan ka faa'iido wixii su'aalaha qabtiin hoos ay ugu soo qori kartiin maxay ahayd aad u qadarinaya fikradihiina iyo waxay kula taabo muhiim ah qofka muhiim ah ina wax fiican soo qortido iso sheeg oo niyad ugu dhisaysid waxaa la rabaa qofka exactly waxa aad ay kula tahay inaad soo qortid iyadoo xumaan jirno xushmad dare aysan jirin waxaa leedahay abay macaanaysan ma ahanaysan macnaan famusa saanaysan ka soo dhig ama saanaysan u bedel marka ceeb ma aha wax isku sheega marka aad u maasantii walaalahay saa idin sheegay intaas walxaatood muhiimsan in cayilka iyo caatada zaadka la iska ilaaliyo in full siiraha kliniga hadda soo dhiga waa kana aad cuntid haddaad cuni karin qudaarta idin soo sheegay abarsatiin alamiitada ay sameysay alamiita muhiim ah inaad gym tagtid oo biriqa qaad muhiiman 30 daqiiqo xawli soconaysaa waxaa soconaysa saa idin sheegay 30 daqiiqo waxaa sugaysaa markii xaajiga la kulantid ha degdegin maxay ahayd waxaa kaloo sameynaysaa abaa kaniiniyaal qaar markuu waxaa jira qofka markuu si kale u xanuunsan kaniiniyaal markuu qaadanayo waxaa jira kaniiniyaashaas ka celinaysa xataa uurka ka celinaya marka kaniiniyaashaas dhakhtarkaaga la tasho waxaa leedahay inaan aniga uur rabaa kaniiniyaasha ma qaadi karaa hooyada kaliya oday xataa waa laga rabaa odayga naftirkiisa problem uu qabi kariyaa gabdho ha iswareerina abaayo amba habayran beedo hadda uu rabtid ha iswareerinin oo macnaha kaliya ha carcarin ase xataa kula carcarro dhakhtar ha tago maxay heeday vitamin ha qaato jimicsi ha sameeyo ma fahmoosaa hooyada kaliya in markasta qalad kala saaran ma ahan badanaa waxaa arkay dad naago lagu soo furay uur ma qaadiyo xaq ogtahay ninka inuu jiran yahay xaq ogtahay waxaa masaakiinta niyadda loogu dilayaa marka yaa niyadda la idinka dilin waxyaabahan sameey ilaahay subxaana watacaala tala saaro awlaada ilaaha bixiyo xanuunkana kaliya laguma qorin oo ninka naftirkiisa waxa waa wuxuu iska noqon karayaa ninaa ilaahay u qorinba inuu ilmo dhalo marka waxaa idin rajeynayaa caafimaad
iyo maxay ahaydey in oo la dadaalo ilaahay la tala saarto mararka qaarna naiif la iska dhigin oo la dhihin maxaa la dhahaa awlaad ilaahay wax kale ma sameeynin caadi iska dhiga awlaad ilaahay laakiin ilaahay wuxuu yiri dadaal marka saas isku ogna walaalahay aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.